Isbayn ama boqortooyada Isbaaniya waa wadan ku yaala koonfur galbeed qaaradda Yurub. Wadankan waxa uu xuduud la leeyahay wadamada Andorra, Faransiiska, Gibraltar iyo Boortaqiiska. Isbayn waxay xornimadeeda heshay sanadii 1479. Badka dhulka dalka Isbayn ayaa ah 505,990 kiilomitir square. Wadankan waa wadanka 11aad ee dunida ugu badka weyn. Shacabka degan dalka Isbayn ayaa gaaraya 46,468,102 qof. Diinta ugu badan ay dadku rumaysan yihiin waa Kirishtaanka, gaar ahaan Roman Catholic. Heesta qaranka Isbayn waxaa la yiraahdaa Marcha Real. Magaalo madaxda iyo magaalada ugu weyn dalka waa Madrid. Luqadda rasmiga ah ee looga hadlo waa Spanish. Wadanka Isbayn waxa uu leeyahay 17 gobol iyo 15 magaalo. Isbayn ayaa noqotay dal mid ah qarnigii 15aad markii ay midoobeen boqortooyadii Kaatooliga ay qabsaday jasiiradda Iberia. dalka Isbayn waa dal dimuqraadi ah oo leh xukuumad iyo baarlamaan, waxaana jirta boqortooyo sharafeed. Midowga Yurub ayay ku biirtay 1986. Calaamadda internetka dalka Isbayn ayaa ah ES. Gawaariduna waxay isku dhaafaan dhanka midig. Isbayn waa wadanka 12aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida iyo wadanka 6aad ee ugu dhaqaalaha weyn qaaradda Yurub. Meelaha ugu badan ee uu ka yimaado dhaqaalaha dalka Isbayn waxaa ka mid ah dalxiiska, maalgelinada caalamiga, tamarta oo boqolkiiba 50 tamarta wadanka Isbayn waa midda cadceedda, waxayna ka sare martay Mareykanka. Gaadiidka dalka Isbayn waxa uu leeyahay wadooyin dhaadheer oo caalami ah iyo qalab tareeno oo dhirirkoodu gaarayo 1.272 kiilomitir oo isku xira magaalooyinka waaweyn sida Malaga, Sevilla, Madrid, Barcelona iyo Valladolid. Aeroboorka magaalada caasimadda ee Madrid ayaa ah mid ka mid ah aeroboorada ugu mashquulka badan dunida. Sanadii 2010 waxaa ka dhoofay 42.3 milyan oo qof, halka aeroboorka magaalada Barcelona ee caasimadda gobolka Catalonia ay ka dhoofeen 2008 30 milyan oo qof. Nidaamka waxbarashada dalka Isbayn waa mid bilaash ah balse qasab ah laga bilaabo da'da 6 sano ilaa 16 sano. Jaamacadaha Isbayn waxay kaalmaha hore uga jiraan jaamacadaha caalamka ugu wanaagsan. Ciyaaraha laga dheelo dalka Isbayn waxaa ka mid ah kubadda cagta oo waxaa ka dhisan labada kooxood ee dunida ugu waaweyn ee Barcelona iyo Real Madrid. Waxaa laga dheelaa dalka Isbayn ciyaarta legdanka dibiyada oo sanad waliba ay ku geeriyoodaan kumanaan dibi.